Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon xawaadiyo uwad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo barbaarsama janal oo aan idinka soo baahino barnaamijyada ku saabsan tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee caruurta markan iyo mawduuceenna ayaa waxa aynu ku eegaynaa nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee caruurta kaasi oo afkan jarmalka loo yaqaano hochsensibel afka ingiriisigana high sensitive haddaba ilmahaasi waa ilmo nooceeya ma og tahay in ay jiraan caruur dareen xasaasi ah leh mase og tahay in aad haysato ilmo noocaas ah iyo in kale hochsensibel ma aha xanuun ku dhaca caruurta balse waa noocyada rabbaaniga ah ee abuurta alleh iyo qofka karakterkiisa ama dabeecadihiisa iyo shakhsiyadiisa waxaana la sheegaa in 15% ilaa 20% ka mid ah caruurta amaba dadka waaweyni ay yihiin dadkaasi caadifadoodu aad u sarreyso taasi oo aan anigu shakhsi ahaan ku tilmaami karo in ay Soomaalidu u badan tahay ama dhammaantoodba noqon karaan marka loo fiirsado hochsensibel ama dad caadifiyiin ah caruurtani waxa ay si dhaqso ah u kala garan karaan kala duwanaanshaha dabeecadaha dadka la nool iyo caruurta ku xeeran waa kuwo caqli badan hal abuur leh inta badanna taxadir ku nool maskaxdoodu waxa ay mashquul inta badan ku tahay waxyaabaha dhaca oo dhan in ay sabab u helaan iyo sidii ay u dhaceen isweydiiyaan halka caruurta kale ay dhacdadaasi la tahay uun wax la dhaafay caruurtan waxay caan ku yihiin ama lagu gartaa waxa ay tahay naxariis badan dareenka qofka kale oo ay fahmi karaan inta badan waxaa lagu tilmaamaa in ay noqdaan kuwa dhinaca iskuulka aad ugu fiican iyo la dhaqanka dadka kale haddaba dhibta caruurtani waxa ay tahay in ay yihiin qaar wax badan dhibsada haddii aan laga taxadirinna si fudud u ugu dhici karaan xanuuno kala duwan oo maskixiyan ah caruurta noocan ahi waa qaar aan jeclayn goobaha saxmadda ah ama buuqa badani ka jiro degdeg uma dhex galaan dadka aanay aqoonin mana dafdaf badna ma jecla dagaalka iyo qaylada waxaanay door bidaan in ay meel deggan ku ciyaaraan caruurtani waxa ay caan ku yihiin in ay had iyo jeer dadka su'aalo weydiiyaan ku saabsan nolosha dhimashada abuurista Ilaahay iyo waxyaabo la mid ah iyagoo ujeedadooduna tahay in ay wax walba xaqiiqda ka ogaadaan iyo xaggu ka yimi waxay aad u kala yaqaanaan sida urta dhadhanka waxa ay indhaha ku arkaan oo ay isla markiiba aqoonsadaan ama aanay ilaawin iyo waxyaabaha ay maqlaan oo maskaxdoodu markiiba ay qaadato ama ay fahanto xilliga uu xanaaqo ilmahani waxa ku adag in uu degdeg u aamuso ama si fudud cadhadu uga ba'do marar badan waxa uu dareemaa cadaalad darro in loola dhaqmo waa kuwo aad u jecel kana doorbida intay caruur la ciyaari lahaayeen in ay dadka waaweyn ka agdhowaadaan taasoo aynu odhan karno waxay jecel yihiin in ay hadba wax ka ogaadaan arrimaha dadka waaweyn iyo sida noloshu u socoto waxa aynu haddaba markan eegi doonaa maxay tahay xanuunada ku iman kara mustaqbalkiisa haddii loola dhaqmi waayo sidii ku habboonayd
xanuunada ay la kulmi karaan caruurtani mustaqbalkooda ama marka ay waaweynaadaan ay noqon doonaan dad noocaas ah marka loola dhaqmo si aan ku habboonayn sidii loogu talagalay amaba si xun loola dhaqmo. waxaa ka mid ah in ay noqdaan qof naftooda oo keliya ka fikira, nooca loo yaqaano narsist, go-aan qaadashada oo ku adkaata, qof aan gool lahayn in ay noqdaan ama hami lahayn, oo aan kala garanahayn waxyaabaha ay jecel yihiin iyo waxa ay necab yihiin, qof hankiisa ama naftiisa aan daryeelin, haddii uu daalan yahay, haddii uu buko iyo haddii uu gaajoonayaba iska soconaya ama shaqaynaya. waxa ay noqdaan qaar khalad in la galo ceeb u haysta, in aan la khaldami karinna qof walba ka raba. haddaba maadaamoy u muuqato ilmahani marka uu yar yahay ama calaamadaha ka muuqda in uu yahay mid nolosha aadamaha wax badan kusoo kordhin kara, aadna u firfircoon, hal abuur leh, maskax furan, taxadir badan oo dadka si fiican ula dhaqma. waxyaabaha ku keenaya marka uu weynaado xanuunadan aynu soo sheegnay ama cilladaha nafsiga ahna ay noqonayaan hadba sida waalidku iyo dadka uu ku xeeran yahay ula dhaqmaan. maxay noqonaysaa waxyaabaha uu u baahan yahay ama siyaabaha ugu habboon in loola dhaqmo. halkan waxaynu ku soo qaadan doonaa dhowr talo oo ku habboon ilmahan in lagu koriyo ama loola dhaqmo. ilmaha noocan ahi waxa uu u baahan yahay dhiirigelin aad u fara badan iyo in mar walba la tuso in la garab taagan yahay. soo dhoweyn badan, weji furan, eegmo dabacsan, in aad ka fiirsato hadallada aad ku odhanayso maadaamuu yahay qof u dabacsan inay wax waliba dhaawici karaan, weliba adiga oo ka fiirsanaya qaabka aad u odhanayso si aanad u dhaawicin. in aad kula dhaqanto go'aamo iyo hadallo cad oo uu kugu soo hagaagi karo amaba aad tahay qof wax loogu soo hagaagan leh. in aad samaysato ama u samayso qorshe nolosha ah iyo wax uu higsan karo. ka ilaali beenta ama ballanqaadyada beenta ah si aanu kaaga niyad jabin amaba kaaga aaminka bixin. in hortiisa laysku laayo, lagu dagaalamo amaba isaga la dilo, lagu qayliyo, taasina waxa ay noloshiisa oo dhan ku keenaysaa burbur. intaa ayaan kusoo koobi doonaa markan iyo mawduuceenna. waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iidi doontaan kana ilaalin doontaan caruurta. haddii aad ka heshay like saar, siina sheer garee si uu u gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. tan iyo kulan dambe iyo mawduuc kale waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.